xala waxaan dhigtay xaflad aan u qabtay aktarka caanka Shahrukh Khan xafladda run ahaantii waxay kala soo qayb galay dad badan siiba asxaabteeda family-gayga kaasa marka si wanaagsan oo igu dhacday aan saan ka rajeynayna si ka wanaagsan baan noqotay waxaan xafladan u qabtay waa maadaama ay ahayd dhalashadiisa anigana aad iyo aad aan u taageero inay noqoto markii ugu horeeyay si wanaagsan uga qayb qaato muddo badan aan soo waday asxaabteedii garab igu siisay run ahaantii inka aad iyo aad baa u taageeraa weligeena waa taageerin jiray ilaa yaraanteedana waa soo taageeri jiray isagana ku aqliyeystay filmaantiisa iyo aadka u jeclahay sida filmaantiisa caanka iyo blockbuster-ka कुछ कुछ होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मोहब्बतें अरे all demand filmaanti soo ismeeneen laakiin dhamaantood wada jecelahay midna kama dooran karo hadda mid aan sheegana ma garanayo waatahay marka goormay kugu dhalatay adiga inaad actorkan caanka aad taageerto filmaantiina aad daawato oo Soomaali badan ay jecel yihiin filmaan aad jecel badanna ay dabcan u soo bandhigo waxay ugu dhalatay ilaa iyo wurigii waa soo waday kale waa hore xitaa waa soo waday wax badan baan soo taageer jiray kale sanadka ma dhigi karaan oo yar ba soo taageer jiray waan ku aqliyeystay atirkiga ku aqliyeystay in filmaadkiisa daawado waaga yara dhalada xitaa laga ma horkacin jirin asay kaliya iska daawan jiray sidii waan ugu aqliyeystay kaliya saan taageera xafladan xalawaa qabatay muddo intee leeg baad qabanayso kormeesku ku dhalatay inaad qalashiis kala duwantay waxaan qaban qaabinayay ilaa muddo adiga markii loo soo dhawaa bishan November marka waxaan bilaaway inaan bishii October hore inaan bilaabo inaan qaban qaabiyo marka waxa tahay awal mar walba statuska kaliya ugu dabaaldeg jiray marka xasta inta kaliya ma ku ekaanaysaa marka reality ka dhig oo asagana ha arko asaga ujeedada dhan waxa weey inuu asagana arko insha Allah marka saasa ugu qabtay oo waan soo qaban qaabin la soo waday xalana si wanaagsan bay ugu dhacday alxamdulillah हर घड़ी बदल रही है डूब जिंदगी छाव है कभी कभी है डूब जिंदगी हर पर यहाँ चेवर जियो जो है समा कल हो न हो dad badan oo Soomaaliyeed ayaa jecel daawashada filmaanta jacaylka u badan ee actorkan Bollywood ee Shahrukh Khan balse dhacdadan ayaa ka dhigan tii ugu horeysay ee ka dhacday geeyiga Soomaaliyeed in ay gabar u dabaaldegto actor caan ah kaas oo jira inta badan filmaanta jacaylka u badan horta dad badan waan arkay oo dhiirigelinayay oo dhahay hore u socod dad badan oo ila yaabana intaba waan arkay kale la yaabi maayo waa isna qaanana wada Soomaalinahay waa isku mashquulna aniga maxay moodo dadkii iga waaweynaa saa loo mashquulay dib male taasna waxa leeyahay ishay dadkii dhahayay xal oo dhan oo ishay hore u socday ayagana mahadsan yihiin kuwa kalena Soomaali wax sheegayeen dadkaas ba chance buu ma ay kaliya waqti iska qasaarinay